بسم الله. السلام عليكم. يا ما شاء الله. وانا السلام يا دمانتين. أدي بان دين سلام يا مانتا لايف waxaan u soo galay nin la yiraahdo duqbilow baan u soo galay maama milyuun waxay tiri baalasha la iska rifayaa bum allah barakeeyo baalasha la iska rifayaa bay tiri bum 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 weeye maanta bum weeye bum horta markaad hadlayso waa inaad aqoon u leedahay magacaan afka Soomaaliga waxa weeye far Soomaali iyo af Soomaali far Soomaali waxa weeye tan la qorto oo la qoro oo la barto luqadaada afka hooyo ee originalka ah afka Soomaaligana waxa weeye midka fasiixa ah ee dadka bulshada iyo baraha Soomaaliyeed markaa timaado ay ku fahmayaan waxaad sheegayso horta duqbiloobow waxaa tahay nin afka Soomaaliga cariiri uga jiro oo aan garanaynin luqadda afka Soomaaliga marka cid wax ka sheegayso ama aad qof wax ku tilmaamayso waxa la rabaa in aad aqoonteeda aad leedahay oo nin aqoon miisaaman leh inaad tahay baa loo baahan yahay in la iska shabkaxsado oo maaragtay la iska hadlo hadda meedii waa dhiban yahay oo cid kastaba waa ka hadlaysaa intay soo fariisato gabadha la yiraahdo Xaliimo Xaaji Maxamed Xaliimo Gobaad ana adeerkeeda waxaad ku sheegtana maaha mana noqonayso anigu qabiilna ka hadli maayo laakiin ilmahayga haddii la taabto waa ka hadlaya ilmahayga oo weliba inan ah xashaa kulillah wax la qaadan kara maaha Xaliimo ana adeerkeeda anigana waa la yaqaanaa cidda aan ahay iyo magacaan ahay aad baa la ii yaqaanaa Xaliimo Xaaji Maxamed Axmed baa la yiraahdaa Xaliimo Gobaad ana adeerkeeda nimaan aqoon iyo aragti aan u lahayn inuu gabadhayda maalin walba maaragtay Facebooka oo uga sheekeeyo waa wax yacni maaragtay aan qabanayn aniga qabiil uma soo fariisan laakiin gabadhayda inuu maalin walba ka hadlo duqbilow Maraykankan kula joogaa aniga qabiil ma caynayo nin kula dhashana waxba ka sheegi maayo laakiin adaan ku haystaa waana inaad ka soo jawaabtaa baarna hadalka aad tiri dib u raac taariikhda adeer baaldaha baan ku jiraa magacayga haddaadan aqoon aniga duqbilow iyo muxuu ahaa qabshaxsada iyo habiqlaysa iyo nin ka weyn baana Cabduraxmaan Axmed Cumar Cabdiyare Jidow baa la yiraahdaa ninkaan aqoon hay barto ninkii yaqaanana waa yaqaanaa waxa weeye aaladda Facebook waxaa loo furay in ummaddu ay ku kala warqaado jaha kasta ay kala joogaan
ay kala war helaan si qof waliba walaalkeed waalidkeed adeerkeed abtigeed walaasheed walaalkeed siduu ku sugan yahay looma furin aflagaado looma furin aflagaado looma furin iyo nin waliba wuxuu sheegayo oo wuxuu rabo inuu ka sheego nin waliba wuxuu sheego waa wax u qoran ee u gelaya diiwaanka ما شاء الله qof waliba waxa weeye waxuu yahay iyo waxa maaragtay miisaankiisu yahay waa wax aan gambasho lahayn oo aan gambaad lahayn oo muuqato waxa uu qofkaasi ku lug leeyahay ama abaartiisu ay tahay Facebook waxaa loo yimaadaa akhlaaq وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلادو ما شاء الله سودو مدة اللي سموقي هاي هذيك عيالك والله إذا حفتي يا صاحبك مركا دقبلو أفلقادو عنق شرف إيه سمعت له ayuu aflagaada maalin walba Facebook ula taagan yahay war gabadha anaa adeerkeeda mana cay kartid waxna kama sheegi kartid waxaysan hayna kuma tilmaami kartid horta indhahaaga iyo aqligaaga isqabadsii nin lunsan baa tahay nin wareersan baa tahay kama hadalna Facebook qabaa'il ugama sheekayno dad kuma xamanno dad kuma dulminno cidna kuma aabiyoonno cidna wax yaan maaragtay aan xumaana uma geysanno ummadda Soomaaliyeed waa noo siman yihiin far iyo faraanti bay noo yihiin waa dadka aan ku naaloonno waa dadka aan ku meel marno sharafkooda iyo sumcaddooda iyo haybadooda iyo karaamadooda waxaan nahay dad diinta islaamka ku dhashay ku dhaqmo ku dhaqayo kuna xiran dadna aan dulmin aflagaadana aan aqoon cid nagu gardarootana waan sida la isaga celiyo waanu naqaanaa marka inaad ilmahaygii maanta aad cayso waxa weeye waa markii saddexaad oo Facebook aad soo gasho oo aad gabadhayda maaragtay waxaysan ahayn aad ku tilmaanto waryaa nin edab daran baa tahay cisatu rabbi waxaan kugu imaanayaa meesha aad joogto haddii aadan arrintan gabadhayda aadan ammaan siin oo aadan raalligelin ka bixin rabbigii macbuudahay baan ku dhaartay aqoon iima lihid gabadhayda lama taaba karo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan waa ii siman yihiin adeerkood baan ahay abtigood baan ahay walaalkood baan ahay ehelkoodaan ahay arxibadoodaan ahay ma kala soocayo marka inaad yacni maaragtaan sidii nin weyn suud intuu u soo xerato aad yacni soo istaagta baraha Facebooka aad ku aflagaadayso inan yar oo maaragta ilaahay karaamo iyo sumcad u yeelay ma kaa siisanayno haddii mar lagu aamusay mar labaad lagu aamusay mar saddexaad lagu aamusay wacadalloon mar afraad lagu aamusayn marka xigana gacan bay tegaysaa oo wallaahi gacan bay tegaysaa cidda gabdhahayga wax ka sheegta ama gabar Soomaaliyeed ha noqoto waa saan u soo galay gabar Soomaaliyeed ciddii wax ka sheegtaa waa isku maqannahay waan isku maqannahay mana maaragtay ugana gamban maayo aashuunna kuma jiro shaambayna kuma addimayo
wallaahi bilaahi tallaahi dhiigga boqol buu imarayaa waana ninka duqbilow la yidhaahdo duqbilow indhaha kala fur indhahaaga waa isku xiran yihiin qam waa indhahaaga laakiin waa fiishkaa lagaaga bixinaa indhaha fiishaa kaaga jira af soomaalina soo baro tag meesha soomaalida af soomaali horta soo baro oo fasiix ah oo aad dadka wax ugu sheegto duqbilow kablow faarax kooshin muxuu ahaa mukulaal walaalkeed waxaasaad facebook la soo gashaa waryaa haddaadan wax fahmaynin waxbaa lagu fahamsiinayaa sir iyo caad baa lagugu fahamsiinayaa far yar iyo far culusba waa lagugu qorayaa oo wallaahi waxaa tahay nin maqaam isku sheegayo laakiin waxaa tahay nin ka dhacsan waad ka dhacsan tahay shacbiyad fara badan oo ku adiga kuu shacbiye ka badan baan leeyahay maanta keliya oon soo galay inta shacab iigu jirto kuwaaga way ka badan yihiin waadna ogaan doontaa in aan maaragtay si sharaf leh oo sumcad leh jawaabtaada laguu siinayo qabiil waa loo dhashay hooyo iyo aabbo ayay ka soo bilowdeen ma la inkiri karo qabiilka waa wax jira oo diinta ilaahay baad inkirta haddaa qabiil inkirta laakiin qabyaalad baa xun inaad qofka qabyaalad kula dhaqanto ood qabyaalad ku xumayso ood qabyaalad ku waxyeelayso baa aad iyo aad khatarteeda u leh bay khatarteedu u leedahay dadkaygu soo dhowaada si sharaf leh u soo dhowaada si xowliya u soo dhowaada aad iyo aad baad maaragtay aan idinkaaga mahad celinayaa dhegaysiga aad i dhegaysateen aad iyo aad baan idinkaaga mahad celinayaa waxa weeye maaragtay ninka gabdhaha iga taabto iyo aniga ma kala baxno wacadaloonan kala bixin oo bilaahona kala bixin oo tallaahona kala bixin ma hurdin gabadhayda maalin walba waa ku taagan yahay ninkan war ninkaan meediyaha ma wuxuu u soo galaa inuu gabdhaha maaragtay soomaaliyeed oo maaragtay aflagaadeeyo ma ahan in gabdhaha loo gef xaashaa kulillaah uma qalmaan gef iyo xumaan waa wax ka reeban waa wax xuduud adag leh gabar geelaa maaragtay la isaga qaadi jiray gabdhaha ninkii gabar kaa taabtay waxa weeye waxba kuuma reeban xaniyadoo ku qabtay marka kablow faarax duqow duq faarax duq kablow duq mukulaal duq shimbir intaba adaa sheegtaa oo meediyaa la soo gala ogaadeen baanahay baad tidhahdaa ogaadeen waa dad la yaqaano oo culummaya caamil oo siyaasiyiin leh oo waxgarad leh oo maalqabeen leh oo ummadda wax ku soo kordhiya magaca ka daa ha sheeganin meelna ha uga dhicin ogaadeen ummadda soomaaliyeed maqaamka iyo mustawaha ay ku leeyihiin waa wax sarreeyo waan ahay waraade waxaas lalama yimaado facebookga lalama yimaado qabiil anaa wax ah baa la yidhaahdaa anaa wax ah anigoo ree ina hebana baa magac wax ah aniga magacayga haddaad rabto waa cabduraxmaan axmed cumar cabdiyare jidow maraykankan kula joogaa soomaali baan kula ahay inaad gabadhaydu dulmisna ma kaa yeelayo
indhaha haddaadan kala furin nijis dhalay baana gablow faarax waxa gabadhayda xaliimo gobaadku daba dhigay gobaad maxaa ugu bixinay ma garanaysaa waxa gobaad aan ugu bixinay waxaan ugu bixinay qiimaha sare ay leedahay xaqiiqda maanta aniga taageerada dowladda laygu yaqaan ummadda Soomaaliyeed marxabaynteeda laygu yaqaan laakiin maanta waxaan u soo galay duqbilow Soomaaliyay 3 jeer buu gabar iga aflagaaday ma iga qabataa inuu gabdhahayga aflagaaday aniga gabar la dhalatay wax ka sheegi maayo nin dhalay wax ka sheegi maayo nin la dhashay wax ka sheegi maayo nimo u abtirsaday wax ka sheegi maayo laakiin asagaan haystaa kablow muxuu ahaa duqbilow daalim waxaad tahay daalim waxaad tahay niman hooskiisa ee asuguba aan waxba isdhaamin niman hooskiisa ee asagaba waxba isdhaamin baa tahay marka waxa weeye hadalka meesha uu taagan yahay iyo xaqiiqda meeshay ku jirto baa la abbaaraa lama abbaaro guri aan irid lahayn lama soo galo docda lagama soo galo dowladdan taageera nabadii nolol anaa taageera qabiilna wax kama sheego gabar Soomaaliyeedna kuma saqajaamo ninka dowlad u qalmo inuu taageero shacabka Soomaaliyeedna wax ku aamini karaan waa ninka maatada iyo dadka birmageydada ah madaxa u salaaxa oo maaragtay taakuleeya oo hadalka ka macaan u soo gudbiya oo sharafka iyo sumcadda ay ku naaloonayaan mashraxa la yimaada ninkaasaa u qalma inuu dowladna taageero Soomaalina wax la wadaago marka Soomaali baa tahay waa runta laakiin Soomaalida luqadeeda la yiqiin ma ahi marka horta luqadda soo baro oo Soomaali leedahay markaasaad karaamo iyo sharaf aad ka hadli kartaa waxaan idinka codsanayaa inaad sheergaraysaan cajaladdan duqbilow bay ku socotaa cid kale kuma socoto waxa weeye baalasha looga rifayaa baalasha dadaan aqoon buu isku soo kaagiciyey uusan aqoon u lahayn waxaa la yidhi maaragteen hawd haddaad qaraacdo wuxuu ku jiraa ka soo baxa marka waa loo soo baxayaa waa loo soo badanayaa wuuna ogaanayaa indhaha inay hayaan wuu ogaanayaa wax badan iyo wax dheexaa baa dulmirow iyo daallun iyo daallumad yaa laga aamusay waxa weeye gardarrada cidna ku gardarroon mayno wax la sheegay waxa kaaga wacan shaahi inaad aragto gardarradu inay shay xun tahay horeba loo sheegi gardarradu waa shay xun waxaan shaahiday oon arkay dhegtaydu maqashay ishaydu aragtay xaliimo xaaji maxamed axmed xaliimo gobaad inuu maalin uu yidhiba maaragtay Facebook u fadhiyo waryaa indhaha kala qaad indhahaaga waa isku jiraan qam waaye waa lagu kala furayaa indhaha nin wiil meel degay baan ahay laakiin aqoon isuma lihin laakiin waa isbaranaynaa ninna dulmi damba ka qaadan maayo
ninna maaragtay kuma xadgudbayo xad iyo xaduud ayaa dadku kala leeyahay marka ninka xaduudda ka soo gudba ee gabadhaadi cabdiraxmaan jiinow ma aha waad mahadsantahay waa cabdiraxmaan jidow aad baad u mahadsantahay magacaan kuu saxaya jiinow ma aha waa jidow marka waxaad maaragtay maanta aan u soo galay dulmilowga iyo dulmilayda in ay codkayga ay maqlaan xaasha kulillah qabiil soomaaliyeed oo aan wax ka sheegayo ma jiro darajay agtayda ka leeyihiin iyo maqaam sare oo aan la soo koobi karin qabaa'ilaadkana facebooka uma soo dirsadaan nine asagaa soo gala ama gabadha dulmilayda cidi sooma dirtee ayadaa soo gasha marka waxa weeye qabaa'ilka soomaaliyeed darajay leeyihiin qabiil dowladuna qabiil bay ka bilaabataa waayo dowlad aan qabiil garbaha ku hayn dowlad ma noqonayso laakiin qabyaalad markay timaado baa dowladdu duntaa laakiin qabiilka markuu garbaha ku qabto ma dumayso dowladdu marka waxa weeye indhaha in la kala furo weeye indhaha ha la kala furo naclad shaydaan bay ku taale indhaha ha la kala furo indhaha ma kala furno wallahi aysan kala furnayn indhaha ha la kala furo kablow faarax muxuu duq bilow indhaha fur indhaha fiish baa kaaga jira waan kaaga saaraynaa waxaan ku tusinaynaa xadka iyo xuduudda aad leedahay haddaad gabdhaheenna uga soo gudubto in macnaha maaragta ay kugu yaraanayso minnesota cariiriya kugu noqonaysaa cariiri iyo meelaa gasho inaad ka weyso wallaahi bilaahi tallahi hadalkaa beentay maaha been kuma hadlo been kuma khudbeeyo been xashaa kulila nacallaa ku yaal duq bilow haddaad indhaha kala furi weydo oo waddada aad saaran tahay ku hagaagi weydo ood gabadhayda waddada aad ugu soo gashay wallahi in laguu dhaafay nin anuga gambanaya ma jiro gabadhayda inuu wax ka sheego iyo gabar soomaaliyeed toona marka haddaad igu taqiineen qabow maanta waa kululaaday waxaana i kululeeyey duqbilow mar buu ka hadlay lacag baa laga dhacay buu yidhi mar kalow ka hadlay war waxaa nijiska ah duqbilow kablow faarax mukulaal walaalkeed war waxaas facebooka la soo istaagayo nijiska ah war yaa nijisow meeshaad joogtaan kugu imaanaynaa wallaahi bilaahi tallah waana lagu tusinayaa xaliimo waalidkeed iyo walaalaheed inay waddanka ay kula joogaan xaliimo gobaad magaca gobaad loogu bixiyey adiguba garo soomaali waa garanaysaa gobaad qofka loo bixiyo waa qof darajo sare leh xaliimo xaaji maxamed xaaji axmed baa la yidhahdaa haddaad taqaanaan iyo haddaadan aqoonina xaliimo gobaad aamine cali maxamedna waa hooyadeed waa ina adeertay qof baa waxay ku sheegtay abtigeeda ninkaasa war anaa abtigeeda adeerkeedna ah waxa lagu sheegayana ma aha waa inantaydi marka wiil baa laga hadlaayay kama hadlo qabiil baa la caayayay kama hadlo mar haddii gabar la igugu soo galay ma la kala baxayo
gabadhayda inay gobaad tahay aflagaadada la aflagaadaynaya kama jawaabayso waayo way ka sarraysaa waxaasoo dhan bay ka korraysaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa in sha allahu tacaalaa hala sheer gareeyo boqolkiiba boqol aad iyo aad baan idiin salaamayaa hala sheer gareeyo kablow faarax ayay ku socotaa ninka la magac baxay duqbilow kablow faarax kuulow adeerkiis ninkay ku baxday ayay ku socotaa cajaladdan ha loo geeyo indhaha ha kala furo indhihiisa fiishaa ku jira waa laga saarayaa fiishka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu